madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xariga ka jaray waddo cusub oo isku xiri doonta kantaroolada Halaaye iyo Cisbitaalka Shifo oo dhan 22.5 kiiloomitir taasi oo dhinacyada waqooyiga ka maraysa magaalada Hargeysa isla markaana saxmadda iyo ciriiriga laga yareynayo caasimadda magaalada Hargeysa. munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa madaxweynaha kala qayb galay safiiro ka socda dalalka Ingiriiska, Imaaraadka, Taiwan, madaxda kala duwan ee mashruuca DP World, gudoomiyaha xisbiga UCID, xubno ka mid ah golaha wasiirada, barasaabka gobolka Maroodijeex iyo maayirka caasimadda iyo maayir ku-xigeenka magaalada Hargeysa. safiirka dowladda Ingiriiska Ambassador Kate Foster oo ay dowladeedu maalgelisay mashruucan ayaa iyaduna ku dheeraatay muhiimadda ay wadadani u leedahay Somaliland iyo kaalinta ay ka qaadanayso isu socodka gaadiidka, horumarinta dhaqaalaha iyo yareynta ciriiriga xagga gaadiidka ee haysta magaalada Hargeysa. madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dhankiisa amaanay horumarka iyo dadaalka ka socda guud ahaan mashruuca Berbere Corridor ee lagu dhisayo wadada Berbere iyo Wajaale oo la hubo in ay wax badan ka tari doonto horumarka Somaliland, kobaca dhaqaalaha iyo isku xirka guud ee gobolka Geeska Afrika. ugu dambeyntii madaxweynaha Somaliland ayaa halkaasi khudbad ka jeediyay. Kate oo maanta nagala soo qayb gashay xafladda dhagax dhigga Hargeysa bypass aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan soo dhaweynayaa safaaradaha kale ee ugu horeeyaan safiirka Imaaraadka Carabta, Taiwan, intaan arkayo iyagana aad iyo aad baan soo dhaweynayaa. dhammaan kasoo qaybgalayaashada waa soo dhaweynaya. wadada waxtarkeeda iyo sida loo dhisay iyo waxa ku baxay iyo hawsheeda intii ku saabsaneyd waa laynoo sheegay, waxba kaga noqon maayo. waxaa quraan ku darayaa waxa weeye qaran ahaan wadooyinka oo aada iyo aada inooga dayacan ama ayna wadooyin hagaagsan ma lahayn, waxaynu u baahan nahay inaynu maskaxyo marog soo geyno sidaynu wadooyin u dhisi lahayn. inta laynaga caawiyana waa alxamdulillah, laakiin inagu waynu dhisi karnaan qabaa wadooyin badan. waxaan jecelahay inaan fursad ka faa'iidaysto oon u soo jeediyo qolada ganacsatada ah maalqabeenka dalku inay samayn karayaan wadada Burca Hargeysa oo ay tol ahaan lacagteedana ka helayaan waqtigeeda. waayo iminka dee waxaa la helay kambaniyaal fara badan oo shaqada yaqaana oo meesha adoontada kuu dhisaya u baahan u dhaqaale, markaa dhaqaalena waynu abuuri karaa waan qabaa. marka wadadan la furo dhowaan sanadka dambe Berbera Wajaale ay noqoto waddo xamuul oo baabuur waaweyn isjeedayso, ay waddada inaad aragtay oo ay dhuuban tahay, waxay la tahay socodka dalka ee bari iyo galbeed iyo isku geli maayaan waddada dekeda u shaqeeya. markaa waxaynu u baahan nahay inaynu deg deg u furno Burca Hargeysa. taana waxaan ku dhihi lahaa maalqabeenku lacagtaa waa la heli karaa, waana ka heli doonaan macaashkeedii iyadabe inaynu ku dhiirano. waxaa kaloo noo soo jeedinayaa maanta Somaliland ahaan meel aada u fiican oo ilaahay mahadiyeenu maraynaa dhinac walba. abaartii ilaahay waa inaga jebiyey, koonfurkii inkastoo dad badan uu inaga dilay alla u naxariistay, haddana hoos wadka u socdaa oo uu sii tegayaa, isaga in ilaahay naga saaro. qaran ahaan nabadgelyaynu qabnaa oo odaynu ku jiraa inaynu madaxdaynu doorano oo tallaabo weyna isu soo dhawaansho iyo dadkii oo wada shaqeynaya wax wadayaalanayaa sii kordhisa maalin maalinta ka dambeysa. marka waxaan leeyahay dadka ummaddu ay madaxda ka dhigteen ee siyaasi leh
الشيخ له مشتري له أقول له من الهم اللي هو حلو بعين هاي إن ضدك مدين يسوق صورانته يهم صعد كبيرية ويكفي شيء هذا وحي ضدك الشك كان قلنا هي أما اللي بعتبر كابوية سيدا صوم بينه وأبار كود كراه أما أبار كود كم مرة كراه ضدك نفتو ضدك مهري أو ياشين لها يكون اسكداء دارهم مالي والبول ما عيا ضمت ضدك نفتو ضوهري أبار كود وحقولنا وهاي نوعي إلهي أو نحرس شنو وبرينه يوم حي كتب عيين أو نصيب ذا السم وهالجنة ولا صحات كلهم دور الشهر المسوا صعوتها مرة بدنا أنا هذا نحكيه وأيوة شعبية تذكر استورنا يا وديجا مسنتهاي ويقبل يسنتهاي مركا رئيس بدنا شري معي وحن سوي شيء يا ما أنت سؤال هذا وحي كل حرة هاي horumarkeeda iyo adduunku inuu aamino iyo horumarkeedu sida aynu u hirgelinaa doorashadaasi waxaan soo jeedinayaa xisbiyadu saddex xisbiba mas-uuliyiintoodu inay ka midaysnaadaan doorashadaasi siday nabadgelyo ugu dhici lahayd dabcan waa xisbiya tartamaya xaq balooyina inay waxyaalaha qaarkood ka wada hadlaan xisbul xaakimka iyo dowladda waxaa khasab ku ah inay dhegaysato soo jeedimaha xisbiyada mucaaridka xisbiyada mucaaridkana waxaa khasab ku ah inay u hoggaansamaan shuruucda dalka oo markay sharci taagan yahay weliba heer qarana oo laga hadlayo qof dembiga laga hadlaya qarnimada maxuul isagoo u dhimin waxaa iyagana ku waajiba inay marka horeta qaranka hormariyaan dabeetana waxaa u bannaan tallooltanka xisbiga talada haya ay ku dhaliilayaan ay leeyihiin annaga kaga fiican ama dadkay u sheegayaan taana xaqbaley markuu dhammaado foodkuna wixii ka soo baxaya hoggaansanaantiisa iyo kolley khilaafooyinaya qoojinteeda inay saddex ka midaysanaadaan horena waa uga ballanay waanu ka qoranay sharciyo badan waanan ku aaminsanahay odayaasha labada oday guddoomiyaasha oo waaya arag u ah doorashooyinka somaliland iyo howlaheedii inay hawshaa gacan iska qabanayaan tartamayaasha iyagana intaa lagula soo jeedinaya inay yareeyaan xinifta dadka wax dooranaya iyo kuwa ololaha wadana sidaas oo kale dhalinyaro mid walba waxaynu u soconaa waa horumarka somaliland waxay usoo halgamaysay oo weli socdo oo saddex sanadooda oo intaasoo dhintay oo intaasoo xoro baabiyey ma aha inaynu ku burburino waxaan la garanaya labada la sharaxaya ee tartamaya mid waliba waa somaliland mid waliba wuxuu doonaya inuu somaliland horumariyo kii helaa waa kii kale maxaa dhiiga soo kici wada dacabta mid waliba waa somaliland waad garanaysaa waa laba noo somaliland waad timanay taana waxaan leeyahay taasaan ku daraya doorashadeena way kharash badan tahay dib baynu uga fiirsanayna saynu wad karayno sanadkana waanu ku soconaa laakiin saacado xisaabaadka aada u wanaagsan maalin wata markii lacag badan keena yidhi xisaab galo wuxuu yidhi adduunka ma jirto meel marka lacagta ku baxday doorashada iyo dadkii codeeye la isu qaybiyo ay $5 qofkii ka badan ku hagaato inaga dhowr ilaa tan ku hagaagaysa inagoo dalka adduunka ugu faqiirsana qofka codeynaya codka dhacaya marka loo qoondeeyo lacagta nagaga baxday ama halanagu caawiyo lacagta ku baxaysa waata doorashada qura ku baxaysa ogow doorashada maamulkeeda qura ku baxaysa qofkiiba waa $20 maraykan iyo ingiriis iyo kuwii doorashada bartay malaha afrika kuwa ugu qaansan ruwaad oo kale waa $3 ayaa qofkii ku hagaa iyo kasii jaba maxay teeni u qaaliday waa weli waynaa bislaan weli waynu waxay nagu cusub waynu ku carartanayna weli ficilta iyadoo hoose iyo hebel lagama xantaystay socota marka macquul maaha waxaynu ka fikri doonaa oo wadaagayaasha siyaasaddu iyo aqoonyaha laga tashan doona inaynu qabsan karno doorasho waqtigeeda ku dhacda dhaqaalaheeda lasii sameeyo dhaqaalaheedu inagay nagu filan yahay sharciyadeeda iyo xanafiyadeedana aynu ka dhamaystirno guushina waxay ku jirtaan hore ku maraynaa innaga oo ku heshiina mar walba talada iyo hoggaanka sida aynu ugu ballanay haddee waqtiga noqoto lagu bedelayo sida loo codeynayo sida looga heshiinayo waayo soomaalida waxay tidhaahdaa ciddu waxay cabtaa markay ceelyadu heshiiso dadka siyaasadda wada xisbiyada aqoon-yahanka culimada maxaan ku raha suldaanada iyo maxarqada ka soo gala waa ceelyadii marka hadday garan waayaan si madaxooda loo doorto isu bedelo ama ay qaskariyaan
waynu jahwareeraynaa dad badan oo jahwareeray oo dariskeennana waynu arkaynaa dhibaatada ka haysata marka maanta messagekeyga waxa weeye fariintaan dirayaa anoo ka faaidaysanaya xafladdan in aynu ku talagalno inaynu doorasho dhib yar nabada waktigeeda ku dhacda mustaqbalka da-deena soo socotana u dhigno si dalkeena uu hore ugu maro tan maantana qof waliba uu qofka u dulqaato maalmo dhaweyto xisbiyada mucaaradka aad bay ugu qaliilo waxaa dad tartamay waa la xidhxidhay mucaaradiintaa loo jeedaa xisbiga kulmiya wuxuu doonaya iska reebo dadka in tartamaya dadkii la xidhay saddexdii ugu horreeyay la xidhay kulmiya ahaayeen laba min xarig baa loo jaray sanada kuwa imika taagana mucaaradka iyo maxaafidka waa wareeyi qofka waxaa lagu soo eedeynaya criminal forgery sharciguu been ka sheegay xafiis buu waraaqihii sii xaday jaamacad aan ahayn buu leeyimi kii la qabto waa nasiibkii kii la helo la odhan maayo hebel buu baxay muxuu hebel u nabad galay hebel hadduu nabad galay lama qabanin lama helin haddii la helna waa la qaban doona laakiin sharci jabay la dhaafi maayo mid waxaaba lagu eedeynaya inuu dalaal cadow a somaliland gacana leeyahay haddii la hubiyo maxkamaddaa deg deg loo geyn waa dembi aynu wada arkan haddii la waayo halkiisi buu kasii wadan looma diiday doorashadiisi laakiin waxaa la hubinayaa shuruudihii doorashada saxmiyi haddii la maagay maxkamadda cadday xaq buu u leeyahay xisbiga mucaaradka qofkuba inuu sharciga isu taago oo wixii qalada ka doodo oo maxkamadda lasoo hortago sharciyadeena waynaynu aaminaa marka inta aynaan qayrin inta aynaan qas iyo ay xanaf abuurin wixii qaran ku saabsan aynu iska imaado taa intaasaan ku dhaafay qoladiina farsamada ee wadadan qaabilsan koridoorka oo dhan qalab badanna waan arkay dad badan oo aqoon leh maanta uu ku jooga birjkan soo eegay dhibaato ma qaban laakiin ciidii waxa qaaday bilska soo baxay sibil hore waa dhowtaan ku xidhnay midna wuu iska xajay midna wuu kiina uu qaatay dee waxaad yeeshaa maanta taga oo adiga dadka badan kula jooga biriishka halkiisii iyo si aamina waa inaa u dhistaa oo nigo ka faa'iidsana tirkada iyo aragta kuwa kale hadday joogtana shirkadahan wixii laga faa'iido aynu gelisna wixii aynu ka gelin karno waayo inu arkaa roobabka xoog bay keeneen cimiladu isbedelaysaa kolba waxbay nagu soo baxaya tabarteenu way yarta laakiin waxaan u qabaa maanta qoladiina afarsan injineeradiina isku tegay waddada ee xaggeena ayuu kuwoodu halkaa dooxa hargeysa bilishadiisa kuwa dhismaha u baahan iyo kuwa joogana inay dayactirtaan waanu iska bixinaa lacagta taana ku talagal kuwa jooga dayactirkooda diyaar baanu nahay kuwa kalena nanoo qimisaan waxa la eego intaa waxaa dheef dalka oo dhan baa sabab ahan waxaan aada iyo aada u kalsoonahay haddaynu isu geyno madaxii mustaqbalka muruqeena ta burco ta laas caanood iyo ceerigaabo tu walbaynu iska dhigno tii jabuutina waa la iska sugayaa wasiirkii